shaqaalaha iyo madaxda akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta ayaa markii toddobaad ka soo qayb galay dhismaha dib loogu dayactirayo xarunta maktabadda qaranka oo laga soo qabtay shaqo baaxad loo dib loogu howlgelinayo xarunta cilmiga. Gudoomiyaha akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta Cabdulqaadir Nuur Xuseen oo shaqaalaha hogaaminaya ayaa carabka ku dhuftay muhiimadda maktabadda qaranku u leedahay qaranka, isagoo geesta kalena sheegay in agabkii la dhigi lahaa maktabadda qaranka akademiyad ahaan ay mar hore ka howlgaleen diyaarna ay yihiin. maktabadda qaranka marka la joogo waa anagu akademiyada dadna waa hawsheeni maxaa yeelay waxaan u qaybsanahay inaan buugaagta tafaftiro aan faaf reebno oon hagaajino oo hadhow marka maktabadda la furayo la dhigo marka annaga iyo maktabadda wada shaqayn dhow ayaa naga dhaxaysa. waxa kamid ah waa maktabadda qaranka iyo madxafka qaranka, ayadana waxaan u ururinaynaa maktabadda qaranka buugaagtii ayaan u diyaarinaynaa marka la furo si loo dhigo. museumka ama madxafka qarankana waxaan u diyaarinaynaa alaabtii la dhigi lahaa hidaha iyo dhaqanka iyo taariikhda ahaa. haddaba ururintooda waan ku jirnaa ilaa dhowr boqol oo shay ayaan madxafka u diyaarinay. muuqaalka guud ee maktabadda qaranku waa mid ka duwan siduu ahaan jiray bira ka hor, shaqooyin adag oo laga soo qabtay kadib iyadoo laga gaadhay guulo waaweyn oo wax ku ool ah. Cabdirasaaq Xaaji Salebaan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.